Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaynu baranaynaa ayaamaha toddobaadka. Ayaamaha toddobaadka waxaa la yiraahdaa days of the week. Day waa maalin, days na waa maalmo. Saad maalmo ka dhigto s baad ku daraysaa maalintii, marka waxay noqdaan days. Week waa toddobaad, isaga qudhiis haddaad rabta inaad toddobaad ka dhigto s baad ku daraysaa weeks buu noqonaya. Marka maanta waxaynu baranaynaa days of the week, ayaamaha toddobaadka. Waana casharkeennii afraad. Introduction, below. Hello everyone. Salam everyone. Salam. Welcome back to Baro English. Welcome back to Baro English. Kusoo dhawow Baro English. In today's lesson, we'll learn the days of the week in English. casharkeena maanta, in today's lesson, casharkeena maanta waxaynu ku baranaynaa ayaamaha toddobaadka. Ayaynu Ingiriisi ku baranaynaa. We use days of the week. We use days to talk about school, work, appointments, and daily activities. waxaynu isticmaalaa ayaamaha saynu uga hadallo schoolka waa wada garanaysaan, work shaqo, appointments ballamo, ama daily activities ama shaqooyinka kale ayaamaha, waxyaabaha kale activitieska ayaa uu bilaadanku qabtee. haddaad cararayso kale, haddaad magaraysa meel tegayso kale, haddii aad magaranaysaa wax kale qorshayaal kala leeday ayaa daily activities leeyahay. Okay, let me read one more time. In today's lesson, we'll learn the days of the week in English. We use days to talk about school, work, appointments, and daily activities. There are 7 days in a week. Waxaa jira 7 casho ayaa weekii ku jira. There are 7 days in a week. Toddobaadkii waxaa ku jira 7 casho ama 7 maalmood. ama 7 beri marba saad u taqaano. Days of the week, ayaamaha maalmaha. halkan Ingiriisi bay ku qorayeen, halkana Somali bay ku qorayeen. marka Ingiriisi baan ku oranayaa, Somalina waan ku sheegayaa. Monday, Isniin. Tuesday, Talaado ama Salaasa. Wednesday, Arbaca. Thursday, Khamiis. Friday, Jimce. Saturday, Sabti. Sunday, Ahad. Let me do one more time. Monday, Isniin. Tuesday, Talaado ama Salaasa. Wednesday, Arbaca. Thursday, Khamiis. Friday, Jimce. Saturday or Saturday, Sabti. Saturday na waad ugu dhawaaqi kartaa, Saturday na waad ugu dhawaaqi kartaa. Sunday, Ahad. Let's go back to Wednesday, and Wednesday dib ugu noqono. Wednesday markaad ku dhawaaqayso diida ku dhawaaqi mayso, waa saasoo kale dhawaaqeedu weeyaa. Wednesday diida waad iska indhatiraysa. Wednesday, Arbaca. Talaada, Arbaca, Khamiis, Jimce, Sabti. Okay, pronunciation practice. Pronunciation practice. معنى pronunciation waa dhawaaq, waa ku dhawaaqid. Practice waa ku celcelin. had iyo jeer waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid ah hadduu ereyga dhawaaqiisa ku adkaada in ereyga la kala jiyo. Pronunciation. ereyga saas had iyo jeer loo kala jijibiyo dhawaaqiisa hadduu kugu adkaado. waxaa la yidhaahdaa Ingiriisi waxa lagu yidhahdaa syllables. Practice baynu kala jebinaynaa. Practice. marka repeat after me. iga daba dheh. Repeat waxa weeye ku celcelin. repeat after me na macnaheedu waxa weeye iga daba celi ama iga daba dheh.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Now say them together. Marka imaka now waa imaka, say waa deh, them waa ayaga, together wada jir weeyaan. Marka si marbaynu wada odhanaynaa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Imaka su'aalihii baynu gudbaynaa. Useful questions. Su'aala ku caawinaya. Okay? Ama su'aala wax tar leh. Useful waa use and full. Marka waa su'aala muhiim ah oo wax ku taraya. Okay? What day is today? What day is today? Today waa maalin ma. Today is Wednesday. Maanta waa Arbaca. What day is tomorrow? Birito, tomorrow waa biri. Today waa maanta. Tomorrow waa biri. What day is tomorrow? Birito waa maalin ma. Tomorrow is Thursday. Birito waa Khamiis. What was yesterday? Shalay maalin ma ahayd. Shalay maxay ahayd? What day was yesterday? Shalay maxay ahayd? Yesterday was Tuesday. Shalay waxay ahayd Salaasa ama Talaada. Is iyo was. Waxa farqiga u dhaxeeya is what day is today. Is wax ma garanaysa taagan baa lagaga hadlaa. Wax present ama xaadira ama dhacaya. Was waxa lagaga hadlaa wax tagay. What day was yesterday? Marka fahanta waxa loo isticmaalaa wax tagay, tanna waxa loo isticmaalaa wax taagan. Example sentences. Example waa tusaale, sentencesna waxa weeyaan ama hawraar baad u taqaanaa ama waxaad u taqaanaa ama jumladaad u taqaanaa qofba sibuu yaqaanaa. Laakiin sentences macnaheedu waxa weeyaan si guud hadal dhammaystiran. Hadal dhammaystiran oo marka qof yiraahdo ama uu qoro macnihiisa la fahmayo, macnihiisu dhammaystiran yahay. I go to school on Monday. Monday school kan taga. We study English on Tuesday. Salaasada English baanu dhiganaa. We waa dad badan. Wednesday is my favorite day. Favorite. Wednesday waxa weeye maalintaan ugu jecelahay. I play football on Thursday. Khamiista kubad baan ciyaaraa. Friday is a busy day. Jimcuhu waa maalin aad u mashquul ah. I visit my family on Saturday. Sabtida familygaygaan booqdaa. Family markaad ku dhawaaqayso aydaas waa silent. Idikuma dhawaaqdo ayda. Marka family oo kale oo saas oo kale weeyaan ba ayda waa marka aydu waxa weeyaan idikuma dhawaaqdo. Visit my family on Saturday. Haddii Somali loo qoro saas oo kale noqon lahaa family. Okay? I rest on Sunday. Hadda waa nastaa. I rest on Sunday. Hadda waa nastaa. Okay, casharkeeni maanta intaas ayaynu kusoo koobaynaa. Waxaan rajaynayaa inuu ma garanaysa ayaad ka faa'iiday. Insha Allah subscribe oo like saar si ma garanaysa dadka kale u baahan ee casharadan ka faa'iidi karaana ay channelka ugu soo biiraan oo casharada halkan ugala socdaan. aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin.